dadyo badan oo dunida ku nool waxay aad ugu wareersan yihiin sidii ay u noqon lahaayeen xariifiin aad u fahma dareemada ay ku sugan yihiin dadyoga kale amaba se halka ay ka yimaadeen dareemada shakhsiga ah ee ay iyagu dareemayaan. haddaba barnaamijkeena ugu horeeya waxaanu ku soo qaadan doonaa ama aynu kaga hadli doonaa sida ugu habboon ee aad u noqon karto xariif dareemeed si aad ula qabsato isbedelada nololeed ee sida joogtada ah u saameeya nolosheena. haddaba ugu horreynaynu ka jawaabno su-aasha ah maxay dareemaan dadka la daalaadhacaya ama la dhibaataysan hooseynta fahamka dareemadoodu. 1. dadka ay ku adag tahay inay fahmaan dareemadoodu waxaa ku adag sidoo kale inay la qabsadaan isbedelada maalinlaha ah ee aynu ku qasbanahay inaynu la noolaano. haddaba dadkaas waxaa aad ugu adag inay la qabsadaan isbedelada ku imanaya noloshooda. tusaale oo kale haddii uu ka geeriyoodo qof ay ku tiirsanaayeen oo ay aad u jeclaayeen. dadka ay ku adag tahay fahamka dareemadoodu waxa aad ugu adkaataa inay ku noolaadaan farxad kadib marka ay waayaan meeshii iyo ciddii ay la qabsadeen. 2. dadka noocaasa waxa ay aad ugu dhiban yihiin inay fahmaan dareemada ay ku sugan yihiin dadka ay la nool yihiin ee ay jecel yihiin. tusaale oo kale haddii aanay xaalad isku mid ah kula sugnayn dadyowga ay jecel yihiin ee ay la nool yihiin dadyowga noocani waxa aad ugu adkaataa inay noqdaan dad la dareen ah kuwaasoo dareema xaaladda shakhsiga ah ee ay dareemayaan dadyowga ay jecel yihiin. tusaale haddii qof ka mid ah asxaabtiisu uu xanuusto waxa aad ugu adkaataa inuu u muujiyo naxariis iyo sidoo kale inuu dareemo xaaladda adag ee uu ku sugan yahay qofkaasi. maadaama ay dadkan ku adag tahay inay fahmaan ama ay dareemaan xaaladda rasmiga ah ee ay ku jiraan dadyowga ku xeeran ee ay saaxiibka leeyihiin ama ka mid ah eheladooda iyo dadyowga agtooda ka dhow, sidoo kalena ay dhibaato ka haysato xaaladda rasmiga ah ee ay dareemayaan iyagu waxaa aad ugu adkaataa inay samaystaan xidhiidho waara oo wakhti badan sii jira. taasina waxay ku kaliftaa inay noqdaan dadyow keli ah oo keli socda. haddaba si aad u noqoto qof aad ugu horumarsan dhinaca fahamka dareemada shakhsiga ah ee uu dareemayo iyo sidoo kale xaaladaha rasmiga ah ee ay dareemayaan dadyowga kale waxaad u baahan tahay inaad samayso tallaabooyinkan aan kula wadaagi doono. 1. waxaad u baahan tahay inaad noqoto qof aad uga warhaya xaaladda rasmiga ah ee uu ku sugan yahay. mar kasta oo uu noloshaada ku yimaado isbeddel kii hore ka duwan waxaad u baahan tahay inaad naftaada kala tashato oo aad weydiiso halka uu ka yimid isbeddelkaasi. marka aad ogaato sababta keentay isbeddelka waxaa kuu fududaan doontaa inaad raadiso xalka. tusaale yaraan ku siiyo, dhakhtarku ka hor inta aanu daweyn bukaanka waxa uu ogaadaa dhibaatada iyo xanuunka haya, kadib waxa uu raadiyaa xalka oo ah dawada nooca ugu habboon ee uu siin karo islamarkaana ka baabiin karta ama ka caawin karta hoos u dhigga xanuunkaas uu dareemayo bukaanku. haddaba si aad arrinkan xal ugu hesho waxaad u baahan tahay inaad raadiso dhibaatada iyo halka ay ka soo bilaabantay, ugu dambaynna aad raadiso xalkeeda meel kastoo aad ka heli kartana aad u marto. qodobka labaad ee kuu fudaydin kara inaad ka guulaysato caqabaddan waa inaad raadiso warcelin ka imanaysa dadyowga kale ee kugu xeeran ee sida fiican ku yaqaana. ha ka xishoon inaad dadka weydiiso waxa ay kaa yaqaanaan shakhsi ahaantaada, waayo waxay kuu fudaydin kartaa inaad xal u hesho dhibaatada ku haysata. qodobka 3aad ee kaa caawin kara inaad xal u hesho dhibaatadan waa inaad maalin kasta wakhti go'an siiso naftaada. fadhiiso meel degan kadibna wareyso naftaada oo ogow waxyaabaha aad ku wanaagsan tahay, waxyaabaha aad ku liidato iyo sidoo kale waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ku soo kordhiso naftaada. xalka ugu wanaagsan ee aad naftaada ku bedeli kartaa inuu ku jiro inaad barato naftaada. ugu dambayn, qodobka 4aad ee kuu sahli kara inaad ka guulaysato dhibaatadan waa inaad ka barato dadka kale aqoonta ay u leeyihiin arrintan aad ka cabanayso. haddii aad dadka kale ka barato aqoonta ay u leeyihiin fahamka dareemada waxaa kuu fududaan doontaa inaad u diyaargarowdo isbedelada aanad aqoonta u lahayn ee kugu iman kara adiga shakhsi ahaan mustaqbalka. si aad dadka kale wax uga barato waxaad u baahan tahay inaad akhriso buugaagta la taxalluqa ama la xidhiidha arrimahan aynu ka hadlaynay. waxaan kaaga tegayaa shakhsiyaadka xariifiinta ku noqda fahamka dareemadoodu waxay aad laacibiin ugu yihiin soo jiidashada dadyowga kale, waana dadka loogu jecel yahay la sheekaysigooda iyo sidoo kale
la saaxiibadooda. waxaan ku rajaynayaa nolol aad u qurux badan oo qiimo badan insha Allah. nabadgelyo.